السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي habeen wanaagsan ku soo dhawaada warbixinadii iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibayaal waxaan halkan ku soo gudbin doonaa kulankii galabta dhexmaray labada kooxood oo ay sanadkan ka taalo waa kooxda Liverpool iyo kooxda lagu magacaabo Chelsea Blues kulankii ay isku yimaadeen garoonka Anfield ay ku ciyaado kooxda Liverpool saaxiib haddii aad tahay saaxiibka cusub barteenaan fadlan subscribe noo saar like iyo share-tana nagu dhiirigeli oo ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa marti u noqotay kooxda lagu magacaabo Liverpool kulan ka tirsan horyaalka Premier League kulankaasna wuxuu ahaa kulan indhaha caalamka oo dhan ay eegayeen maadaama labadan kooxood oo ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub iyo horyaalka Premier League ay sanadkan ku jiraan wareer fara badan maadaama ay ku kala jiraan kaalinta 10aad iyo kaalinta 9aad ee horyaalka Premier League saaxiibayaal waxaan ognahay in labada kooxood ay sanadkan caqabado fara badan ay ka haysato xagga gooldhalinta iyo xagga guusha maadaama ognahay inay dhibaatooyin fara badan ay soo mareen kulamadii la soo dhaafay ee horyaalka Premier League waxaana kulanka xamaasad gelinayay in labadan kooxood ay ku jiraan top 10ka horyaalka Premier League kaalinta 10aad iyo kaalinta 9aad waa laba kaalmood oo isku xiga iyo laba kooxo oo waaweyn kulankaasna uu ka dhacay garoonka lagu magacaabo Anfield Road ay ku ciyaaro kooxda Liverpool kulankan oo loo maleynayay in wax badan ama isbedel badan uu ka dhici doono laakiin waxa uu ku soo dhamaaday wax natiijo la'aan ah maadaama labada kooxood ay kala qaybsadeen dhibcihii kulankuna waxa goolal ah uusan ku soo kordhin uu ahaa eber iyo eber gool la'aan waxay sanadkan ku tusaysaa labadan kooxood ee waaweyn waa Liverpool iyo Chelsea inay xagga gooldhalinta ay aad ugu liitaan maadaama kulamada ay soo dheereen horyaalka iyo kulankii ku dhexmaray garoonka Anfield Road kooxda kubadda cagta Chelsea oo ahayd marti ayaa waxay ku bilaabatay dardar xoog leh maadaama ay isku haleynaysay in kulankii hore ay soo gaadhay guul weyn hal iyo eberna ay ku soo hogaamisay oo guul la taaban kara ay soo gaadhay kooxda kubadda cagta Liverpool oo joogta minankeeda ee garoonka lagu magacaabo Anfield waxa ay xalay ama kulankii galabta dhacay ay ahayd bisad maadaama weerarka kulul ee Chelsea uu ahaa mid dhagaha iyo indhahaba ka galay kooxda kubadda cagta Liverpool kulankan ayaa ku biloomay kulan kooxda kubadda cagta Chelsea ay hogaaminayso ama ay maamulayso kulanka waxayna khadka dhexa ay dhigatay Chelsea kulankii galabta dhagaxyo waaweyn maadaama ogeyn in kooxda kubadda cagta Liverpool uu soo dhaafayay ama uu soo gaari weeyay kubaddooda khadka dhexe maadaama kooxda lagu magacaabo Chelsea weerarkoodana uu ahaa mid aad u fiican boonigana ay aad u fiicneed dhinac walba ay uga fiicneed kooxda kubadda cagta Liverpool waxa uu ahaa kulan aan inaman caadi ahayn ayna ka soo qayb galeen taageerayaal aad u fara badan kulankii bilowgiisii daqiiqadii 3aad kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa sameysay fursad loo filan karay gool markii laacibka lagu magacaabo Thiago Silva ee reer Brazil uu madax ku qaraacay birta kooxda kubadda cagta Liverpool laakiin waxa gool u bedelay laacibka lagu magacaabo Kai Havertz ee reer Germany waxaana ay aad iyo aad u farxeen kooxda lagu magacaabo Chelsea maadaama ay durba la yimaadeen goolkii hogaanka ciyaarta laakiin markii ay dabaaldegeen kooxda Chelsea waxa la fiiriyay in aalada lagu magacaabo VAR oo gool badan oo dad badan u dabaaldegeen ama ay u farxeen ka dhigtay wax gool la'aan ah ama natiijo la'aan ah laakiin VAR ayaa cadeysay inuusan goolkan ahayn gool sax ah oo dhowr ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Chelsea ay ku jiraan offside goolkaasna wuxuu noqday mid ku soo laabtay kooxda Chelsea oo niyad badan ku abuuray kadib farxadii weyneed ee dabaaldalkii waana ay ku galeen garoonka lagu magacaabo Anfield Road kulankii oo sii socday waxa weerarka sii watay oo mar walba sii talaabsanayay kooxda kubadda cagta Chelsea oo khadka dhexe kulankaas dhigatay dhagaxyo waaweyn iyo tiirarba laakiin
kooxda lagu magacaabo Liverpool oo ahayd kooxda joogta minankeeda waxay ahayd mid ku jira daafac aad u liita daafaceeduna ma ahayd mid fiican kulankii ay la dheeleen kooxda kubadda cagta Chelsea si wata qaybtii horena aad u fiicneed markii laga soo laabtay qaybtii dambe ee ciyaarta ama qaybtii labaad ee ciyaarta waxay Liverpool ku soo gashay si dhiiran ama si firfircoon ayadoo khadka dhexe ee Chelsea dhaxyada ay dhigatay bilowday inay midmad u qaado kooxda Chelsea laakiin waxa taas beeniyay markii uu dib ka yimid laacibka dhawaangalka ku ah kooxda kubadda cagta Chelsea ee lagu magacaabo Matic kaas oo kulanka ka dhigay mid wax weyn ka bedelay maadaama la arkay weerarkii farbadnaa oo ku soo qaaday goolka kooxda kubadda cagta Liverpool kaas oo laacibka daada ah ee Muller kaas oo ka dhigay mid aan waxba ahayn oo soo jiray laacibka reer England ee lagu magacaabo Muller kulankii ayaana ku soo dhamaaday eber saaxiibayaal haddii aad tahay saaxiibka cusub barteena fadlan subscribe noo saar laagta iyo shartana nagu dhiirigelin waan ku mahadsantahay saaxiib la jaanqadkaaga